Kani waa qolkayga. Sara waxa ay qabtaa cudur ku dhaca dhimirka waxa ayna naga codsatay inaan qarino wejigeeda. Sara waxa ay ku noolayd gurigan ay alaabuhu buux dhaafiyeen waqti aad u dheer. Maba aanan rabin in aan ka fikiro in uu jiro adduun kale oo bannaanka ah marka uu qolkayga sidan u eg yahay. Waxaana ku hareeraysan alaabo tiro badan oo ay u soo iibsatay si ay u farxad geliyaan nafsadeeda. Waxaan soo iibsadaa waxyaabo ay ka mid yihiin raashinka, alaabaha musqulaha iyo kuwa kale. Markaas ayaan guriga ku soo laabtaa anigoo ku faraxsan alaabaha aan soo iibsaday. Laakiin maba hayo tabar aan ku isticmaalo ama aan meel ku dhigo. Marar badan ayay sidaa igu dhacdaa. Hadda waxa ay ka qayb qaadanaysaa barnaamij ay wado hay'adda samafalka UK ee loo yaqaano Mind. Waxaa gacan siinaya qof khabiir ku ah caafimaadka dhimirka si ay u samayso isbeddel. Dadka aan aniga la kulmay oo sida joogtada ah u iibsada alaabta ayna u baahnayn kulli way isbedeli lahaayeen haddii ay awoodaan. Kaydinta alaabaha tirada badan ayaa loo arkaa inay keenayaan khatar xagga nabadgelyada ah. 90 sakan gudahood ayuu dab ugu faafi karaa guryaha ay alaabuhu buux dhaafiyeen. waxaan ka hortagi karnaa dabka ka dhaca guryaha. Waxaan gacan ku siinaynaa inay madax bannaani helaan. Waxaan yareyn karnaa go'aanka bulshada. Qolkani wuxuu ahaa mid aad isugu dhex qasan markii ay Sara bilowday ka qayb qaadashada barnaamijka. balse horumarka ay gaartay ayaa hadda ah mid ka yaabiyay gabadhii caawinaysay. waxaan dareemayaa qiiro badan haa sii wad waxaan u malaynayaa in aan ku fikiri jiray in aan u qalmin in aan ku noolaado goob wanaagsan waxaana hadda dareemayaa in aan walwal joogto ah qabo. Sara waa ay dareemaysaa isbeddelka weyn oo ku soo kordhay balse golayaasha degmooyinka UK ayaa doonaya inay gacan u fidiyaan dadka qaba xanuunka Sara oo kale si ay isbeddel weyn ugu soo kordhiyaan bulshada.